dhegaystayaal niyad sami iyo kalgacayl ugu soo dhawaada barnaamijkii faaqidaadda cayaaraha qodobada aan idinkugu hayna waxaa ka mid ah labada kooxood ee isugu soo haray ciyaarta kaba dambaysta tartanka Soomaaliya ee Hargeysa oo ka hadlay sida iskugu diyaarinayaan kulankaasi ciyaartoyda ajnabiga ah ee ka ciyaara horyaalka kubadda cagta Soomaaliya saameyn ma ku yeeshaan kooxaha ay u ciyaaraan ciyaarta finalka ee horyaalka kubadda kolayga Soomaaliya oo si weyn Muqdisho la isugu diyaarinayo Lewandowski ma awooda in uu fuulo buurta Ronaldo saaran yahay ee goolasha Champions League lagu dhaliyo iyo waliba warar kale oo xiiso leh aan ku horreynay waxa maalinta Arbacada ah ee toddobaadkan ila soo gabagabayn doona tartanka Soomaaliya Cup oo u dhaxeeya 12 kooxood oo 10 ka mid ah ka dhisan yihiin magaalada Hargeysa halka laba kooxoodna ay ka kala dhisan yihiin Boorama iyo Berbera waxa tartanka iminka isugu soo haray kooxaha wasaaradda horumarinta maaliyadda ee Hargeysa iyo kooxda ciidanka qaranka ee Gaashaan haddaba arrintaasi ayaan ka waraystay wariye Cabdirasaaq Biinde oo ah saxafi degan magaalada Hargeysa ciyaarahana ka faalooda موليدو ترتنكي حساب بدنا كوحدة قاشان waxa macalin u ah Aftaax Ismaan Shambeero kooxda maaliyadana waxa macalin u ah Axmed Maxamed Iidaan runtii labadan kooxood waxay ka kala tirsanayeen groupka A iyo groupka A groupka A kooxda wasaaradda horumarinta maaliyadda waxay kaga soo baxday kaalinta koowaad iyadoo ay ku weheliyaan kooxda ciidanka asluubta dawladda hoose iyo kooxda xidigaha Boorama halka kooxda Gaashaanna ay ku wehelinayeen groupka A kooxda Goodir kooxda wasaaradda ganacsiga iyo kooxda Waaxool runtii wuxuu ahaa tartankan mid xiiso badan daawadayaashuna garoonka inta badan ay soo buuxinayeen qaar ay taageerayeen ugu dambeyn labadan kooxood baa isku yimi Gaashaan 2011 baa ugu dambeysay final ay yimaadaan kooxda wasaaradda horumarinta maaliyadda waa markii ugu horeysay ay yimaadaan tartankanna waxa la ciyaari doonaa ciyaarta kama dambaysta 12 August oo ku beegan maalinta dhalinyarada adduunka waayahay Cabdirasaaq taa marka laga tago labada kooxood ciyaartoydooda gaar ahaan kabtanadu maxay ka leeyihiin ciyaartan imika isku diyaarinayaan waxa fikirkooga iyo aragtidoodaba la wadaagay labada kabtan ee labada kooxood kala hogaaminaya waa Cabdikariin Gucci iyo ciyaartoyga kabtanka kooxda wasaaradda horumarinta maaliyadda ee Cabdiraxmaan Dayload aragtidoodana waa sidan magacaygu waa Cabdikariin Maxamed Xirsi ku magac dheer Gucci ahna kabtanka kooxda ciidanka qaranka ama Gaashaan run ahaantii waxaanu taaganahay finalkii Soomaaliya Cup sida dhamaantiinba loo socotaan insha Allah waxaan rajaynayaa kooxdeedu inay ku guuleysato tartankan sidii tartankii tartamadii hore ugu guuleysan jirtay Gaashaan oo kooxda horyaalka wadanka oo kooxda wadanka ugu koobabka badan leh oo ku faraxsanahay inaan kamid ahaado kooxda ciidanka qaranka Gaashaan waxaanu wajahaynaa kooxda horumarinta maaliyadda run ahaantii maaha koox la dheelsan karo waa koox aad u dhisan laakiin waxaanu ku kalsoonahay 100% tababarkii iyo dardaarankii macallimiinteeduna siinayeen oo qayb ka ah inaanu halkaas soo gaarno marka laga reebo ogolaanshaha Ilaahay ugu mahad celinayno inuu halka Ilaahay nagu simo alxamdulillah rabbil caalamiin sidoo kale waxaan u mahad celinayaa dhammaan taageerayaasha ciidanka qaranka ama kooxda ciidanka qaranka Gaashaan assalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatuh bismillaahir rahmaanir rahiim magacaygu waa Cabdiraxmaan Jaamac oo ku magac dheer kabtan Dayload waxaanay kabtanka maaliyadda runtii waxaan u soo baxnay tartanka heerka koowaad ee magaalada Hargeysa kaasoo magaciisa Soomaaliya Cup oo u dhacno kooxda ciidanka qaranka waa markii ugu horeysay kooxda Gaashaan aan isku hornimaadno waana markii ugu horeysay kooxda wasaaradda maaliyadda iska xaadirso ciyaarta kama dambaysta ee finalka waana ku faraxsanahay inaanu taageerayaasheeda aan u soo bandhigi doono ciyaar qurux badan sidii hore ay nooga barteen walaalahayaga Gaashaan waxaanu leenahay ciyaar wanaagsan oo dadku ku farxaan oo dadku ay ciyaartooyda ay ku farxaan oo soo jiidasho leh inaanu soo bandhigno waxaanu matalanaa magacii dalka waxaanu matalanaa magacii dhalinyarada runtii keena badiyaaba waa guul soo heetay dalka muhiimaddu waxa weeyaan in ciyaartaas si nabada oo qurux badan oo bilaa turxaan ay ku dhamaato kamaaliyad ahaan anagu waxaanu rajaynaynaa insha Allah inaan tartanka ku guuleysano